ciidamo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Somaliland ayaa maalmadii shalay soo gaaray magaalada taariikhiga ee Taleex iyadoo ay ciidamadani kolkii ay soo gaareen magaalada loo gudbiyay halka ay magaalada ka degan yihiin mas'uuliyiinta maamulka Khaatumo halkaasina ay uga warbixiyeen sababaha ay u soo goosteen isla markaasina ay ugu soo biireen ciidankooda iyagoo eegaya danaha ummadooda. Cabdi Jaamac waxaan ka tirsanaa in guutada labaad saldhigga 12aad waxaan imid xalay habeen hore maantana waxaan ku sugnahay magaalada taariikhiga ah ee Taleex waxaana sababay inaan soo goosano la coloobay shacabka boolaha SSC waxaana nagu kalifay marka aanu aragnay shacabkayaga sida cadowtinimada leh oo loola dhaqmayo sida darteed maamulka Silayaanna colaati maanu la qaadanaa inaanu la colowno marka timaadeen magaalada Taleex oo shirweyne Khaatumo socday sidee lagu soo dhaweeyay waxaana lagu soo dhaweeyay si ballaaran dadkayaga baanu u nimid maamulka Khaatumo State waxaana lagu soo dhaweeyay si qiimo leh waxaanu u nimid dadkayagii iyo dawladayadii aanuna garab istaaginaa awalaanu ahayn waxaanu mustaqbalka aanu noqonaa inaanu noqono kuwa dadkooda iyo dalkoodaba u shaqeeya oo difaaca dadkooda iyo dalkoodaba si hagarliya u difaaca cid kastoo soo faragelisana gacan ka geysta. sidoo kale madaxweyne Axmed Karaash ayaa halkaas uga mahad celiyay isla markaasina ugu baaqay ciidamada ku haray maamulada Puntland iyo Somaliland ee u dhashay deegaankani in ay iyana ku soo biiraan ciidankooda. aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa kuwa kale ee dulinimada ku nool inay maxay idinku daydaan dalkiinni iyo dadkiinni markaad u adkaysan weydeen markaad xorriyad u mari weydeen suuqa markii la idinku amrayay inaad laysaan hooyooyinkiin iyo carruurtiinnii damiirkiinnaas waa mid heer sare ah waa kaan ku ogaa ciidamada reerkan Sool iyo Sanaag iyo Cayn ciidamadooda waan garan lahay weli kuwa ku sii dambeeyo oo u adkaysanaya waxyaabaha noocaas insha Allah waxaan rajaynayaa iyaga ugu dhow inay hawsha ka qayb qaadan doonaan wuxuuna qarsoon yihiin sida nin nool oo maxay ka sugayaan nolol bari mar aan fogeyn wala arki doonaa inagoo xuduudkeennii oo xora aynu dhex marayno. dhanka kalena mas'uuliyiin iyo isimo ka socday beesha Cabdiraxmaan Harti amaba Kaski Qabe ayaa soo gaaray magaalada Taleex iyagoo horena Sooriyo ka socotay beelahaas ay u soo gaadhay magaalada Taleex balse ay tahay haatan markii ugu horeysay ay mas'uuliyiin ka socota beeshaasi ay soo gaaraan magaalada Taleex iyagoo oo sheegay in ay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin maamulka Khaatumo ayna iyagu kamid yihiin beelaha ku midoobay maamulkan Khaatumo State of Somalia waxaana halkaas ka hadlay Suldaan Siciid Guuleed oo kamid ah ismada beeshaasi kuwooda ugu mudnaanta weyn leh waxaana hadaladiisii kamid ahaa Suldaan Siciid Guuleed Sudaanka beesha Cabdiraxmaan Harti waxaan taageero buuxda taageeraynaa maamul goboleedka Khaatumo oo ay dhisteen dadweynaha ku nool Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo aan nahay anoo kamid aan nahay waxaan sidoo kale leenahay oo ku talabixinayaa inay Puntland taageero maadaama ay dad isku diina isku dhaqana walaala isku degaan sidoo kale waxaan leeyahay Soomaaliland inta lafteeda dadku wada walaalaha oo isla nool oo isku degaan waa in la helo nabadgelyo waa in la helo haddii aan nabadgelyo la helin dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho waxaan leenahay oo talab buuxda ku bixinaynaa dadka in dirta colaadeed horinta laga daayo oo dadka walaalnimo ay dhammaan walaalo noqdaan maamulkan hiil iyo hooba waa la garab taaganahay dhismaha la dhisana waxaan ku lahayn ka qayb ahaan oo la qaybsadana waxaan ku leenahay waxaana ka dhisnay iyadoo ay haatan lagu jiro waqti xasaasi ah shirkii Khaatumo soo gabagaboobay laguna soo dhidbay maamul goboleed ayaa haddana waxa ay soo taraya oo kolka ka dambeeya soo badanaya taageerada uu helayo maamulkani iyadoo ay jiraan waliba beelo aad u tiro badan oo cadeeyay in ay ku soo biirayaan kana mid yihiin maamulka Khaatumo kuna qanacsan yihiin qaabka loo dhisay una noqon karo mid Soomaaliya midnimo u horseedi kara. Maxamuud Saleebaan, Somalisat TV, magaalada Taleex.